booqday oo yimid gudoomiyaha company-ga Hema Box qaybta Boorama ama gobolka Awdal Maxamed Amin marka wuxuuna noogu yimid kulley inuu nagala qayb qaato ardayda farxadooda oo ah top 10 ama 10 arday markiska cilciliska iskuulka qaybta secondary-ga ah dugsiyada Cumar bin Khataab ugu sareeya marka gudoomiyuhu kulley aad iyo aad u mahadsan yahay in Ilaahayna ka jazaaysiiyo wuxuuna u yimid inuu dhalinyarta kaalintoodii ardaynimo ka soo baxay ee ka soo dhalaalay inuu maad aragtay isaguna uu ku garab istaago jawaais inuu siiyo awna maad aragtay ku dhiirigeliyo marka waxaan leenahay iskuulada Cumar bin Khataab gudoomiye ku soo dhawow maahana markii kaliya ahaa uu noo yimaado waxa inta u badan uu naga warhayaa wixii kolba maad aragtay talo iyo tusaale uu nala wadaaga sidaa ardayda uga farxinayana kulley waxa weeye in had iyo jeer jecel inuu dhalinyarta oo garab istaago waxaan leenahay ku soo dhawow dugsiga maamulka sare iskuulka Cumar bin Khataab ugu soo dhaweynaya ardayduna way kugu soo dhaweynaysaa aad iyo aad baa u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa maamul ku-xigeenka dugsiga Cumar bin Khataab waxaan halkan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa maamulaha guud ee shirkadda daabacaadaha iyo qalabka waxbarashada keenta Somaliland ee Hema Box oo runtii Maxamed Amin Cumar Cali maanta halkan inoogu soo booqday sidii u dhiirigelin lahaa ardaydii top 10 ka gashay imtixaankii termka koowaad ee dugsiyada sare ee Cumar bin Khataab waxaan ku soo dhaweynayaa maadaama waqtigu inuu kooban yahay kelmadiisii munaasabadan ku aadaneed si uu uga jeediyo falyatafadal Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى كل maamulka dugsiga dhameeyay amaana aan leeyahay runtii winasiiyeen aad booga maadaleena waxa ugu muhiimsan runtii shirkadda Hema Box si fiican baa u taqaanaan waxay ka shaqeyso waxaanu ka shaqeynaa oo koorka businesska Hema uu yahay buugaagta manhajka ee wasaaradda waxbarashadu leedahay oo anwaac kala duwan leh ama noocyo kala duwan leh dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare sidoo kale shirkaddu waxa ay ka shaqeysaa buugaagta kayjiyada ama inta aan dugsiga la gelin preschooliska waxyaalaha loo yaqaano marka buugaagta kayjiyadana runtii iyaga oo ardayda hoosta aynu ka dhisayno ayaynu diyaarinay iyagoo daabacan awala sidoo kale waxa aynu hadda keenay buugaagtii madaaristu ay gaarka u lahaayeen oo madrasadahana waanu kusoo darnay waxaa iyagana runtii boqolkiiba qayb ka noqday wasaaradda diinta iyo awqaafta oo diyaarisay sida wasaaradda waxbarashadu ay iyaduna u diyaarisay manhajka iskuulada loogu talagalay in laga raacdo waxa kale oo muhiim iyaduna runtii inaynu hadda oo inagu cusub oo aan jecelnahay ardayda inaynu la wadaagno buugaagta revision guide-ka ama loogu talagalay ardaygu inuu maskaxdiisa ku furfuro waqtina ku geliyo isagoo buuggii hore haystay ayaa buuggana wuxuu u noqonayaa buug supplementary oo revision guide oo su'aalihii iyo jawaabihii buug uu lahaa lagu soo ururiyay runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta joogno dugsigii Cumar bin Khataab waxaa sidoo kale aan ku faraxsanahay ardayda quruxda badan leh runtii ardaydii ugu sareysay ahaa imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada Cumar bin Khataab waa dugsi runtii aanu si gaar ah isugu xidhannahay wada shaqayn toosan aanu leenahay si aan u dhiirigelino ardayda waxaanu maanta u soo qaadnay maadaama ardaydii ugu sareysay ay yihiin buugaagta revision guide-ka ah ee cusub oo loogu talagalay inuu ardaygu ka faa'iideysto haddana ay yihiin buugaag runtii ardaydu aad ay u raacdaan oo runtii muhiima marka 11 ardayba waxaan u soo qaadnay buugaagtii revision guide-ka ahaa si aan u dhiirigelino dadaalkana ay halkaa runtii kasii wadaan maamulka dugsiga iyo ardaydaba waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo Hemana waa lama horaan insha Allahu aynu ka warhayno isku nimaadno wada tashanno wixii aad u baahan tihiin agab waxbarasho ku saabsan diyaar baan lanahay insha Allahu aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أخذ هذا السلام يا إن مامور كأي معلمين تدرس عمر بن الخطاب يا إن مستر محمد أو أخذ دنيا قلت يا مبوكس مركبادي مرة بعد نوحن مهدني مرستحب إلهي يا الحمد يا ما حضرنا نسكله إن يجوز بولي امتحانات كان كسوق الدوسية إن أنا كم نقطة إن توتن كعب توتن كعب أو سرسة الدوسية مركب وحن لها آد بين المسجد المادي مستر محمد حقول لك مستر محمد أمين حقول لك إنه أنا أدم هاد أنا يدي لكين تعب حنا أو هاي قف كاستمر أو دي لكين أنا
in dadaalkiisii uu sii wadaya laakiin wax oo hoos uga dhacay oo lus gareynaya ma jirto waxaan idin leeyahay thank you for much halkaan ka sii wada dhiirigelinta wado aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أولا السلام عليكم مرلبات بحان كميدا هاي أرديدا عمر بن الخطاب قارها فوفور ugu horey ilaahay baa mahadlo iskoolkan maadaama dhiganaymka mar labaadna maamulaha iyo maamul ku-xigeenka kadibna macallimiinteena oo noo suurageliyay inaan si fiican u fahmo iyo Hema Books oo buugta ugu fiican magaalada ama manhajkan dhiganaan laga helo oo abaalmarinta ay maanta noo keentay ka gudoomi doono